gudoomiyaha qaadka Soomaaliyeed Mira Kabin waxaan idin sheegayaa annagoo iska joognaa awal bahalkan ku dhibaataysnayn oo dhib badan uu noo geysto dhaqaalahayagii uu la degay waa niman jooga maaragtay Mira maaragtay Mowa ay shalay shir qabteen waxay yiraahdeen qaadka waa joojinayna qarannimadeeda ku bedelanmayn waxa weeye marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragta anagu u baahanahay inaan iska joojino marka sida adligeed qaadka waa iska joojinaynaa waxaan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayaga iyo magarata lagu bedelayo saas adligeed kan waqtigiisi waa dhacay taymkiisi waa dhacay meeshiisa ha u dhaafeen ayaga meeshay geynayaan ayagu haday ciidooda danaynayaan anagu ciidayada iyo badayada iyo carrigayga aan danaynayn wixii inta ka baxsan waxa weeye waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dawladayada aan uga dambaynayn marka sida adligeed waxaan idin sheegaynaa maanta laga bilaabo qaadka mirowga waa joojinay adugu waa joojinay maadaama ayagu ay joojiyeen anagu aan joojinay maaragta wixii siyaasadana de qaranka Soomaaliya qaabilsan suuqyaalkay wareejisay waxa weeye suuqiisii iyo ganacsigiisii mid asaga ka fiican oo ma garata waliba qudaara oo haddana qudaar lagu bedelayaa kii dollar baa lagu bedelayay oo maalin walba intaas soo 400 kun oo dollar baa baxaroonaysa mid hadda lagu bedelayo ma garata bahalkii la oran jiray kalluunkayaga iyo khayraadkayaga iyo ma garata qudaarahayaga lagu bedelayo baan ku bedelaynaa oo hadda noo yaalo aad u jeedaan oo hadda dhabarkayga daadsan waxa weeye waliba ka dhowna waxa laga keenay maaragta dalalka dariska imisa diyaaradada intii baahidayada noqoto hadba intii baahidayada noqotaa wacanayna awal midkaan mid ay ugu dhibaataynayeen naga soo dabararayeen oo dib badan oo u geysanayeen asagoo qalan loo keenayeen asagoo qaali ay naga gadayeen ay noo keenayeen hadda laakiin mid anagu inta rabnaan dirsanayno wixii na qarciyana aan ka qaadanayno baan qaadanayna awal qoryo qalalan bay noo keenayeen diyaaradaha noogu keenayeen saas adligeed waxa weeye qaadkoodii waa laga gudbay waxa weeye waqtigiisii waa dhacay waxa weeye Soomaaliya Soomaali baa leh Rahmaan Rahiim magacayga waa Cabdimanaan Cabdullaahi Soofe guddiga ganacsatada qaadka Soomaaliyeed ee Mira Company anaga waxa waaye qaadka ganacsigiisa awal waxaan loo geeyay burburkii iyo dawlad la'aantii iyo dhibaatooyinkii la soo maray ayaa waxa laga raadinayay nolol maalmeedka in laga helo sidaas awgeed maantay oo aanu helnay dawladda aanu leenahay markaan waxa tiigsanaysaan inaad horumar gaartaan ayaa hadda Kenya xusuusisay inay waxa ay nagu haysay dhibka ahaa in ayaga ka soo qaadinay ganacsiga anaga waxa waaye maawatu Muqdisho waxaan hantideena ku beelnaa oo soo gadnaa waa cagaarkaas haddana waxaan celino oo aan xagga u celinaa ma jirto waxa weeye waxa keenaa cagaar waxaan dhiibnaa lacag sidaas awgeed maadaama hadda maanta ayna xusuusiyeen ayaga wixii hadda ka dambeeya annagu hantideena waxaan gashanaynaa beeraheena iyo mashaariicdeena maadaama dawlad la'aanta aan ka baxnay maanta aan dawlad helnay annagoo wadankeena u heelinayna oo aabadeena u heelinayna kalluunkeena iyo beeraheena iyo mashaariicdeena ayaan gashanaynaa hantideeni qaadkii iyo cagaarkii aan ka soo qaadi jirnay oo aan waxan faa'iido ah noogu jira aysan jirin in ilmaheena iyo dadkeena ay ku wareeraan maahana maanta wixii ka bilowda waanu joojinaynaa wixii arrin siyaasadeedna waxaan uga dambaynaynaa dawladdeena anagu waxaan go'aansanay maadaama aanan keenaynay cagaarkaas aanan ku bedelaynay hantideena maanta wixii ka dambeeya inaan deysano lacagteeni oo aan lacagteena wadankeena gashano oo aan wadankeena dib u dhis ugu suubsano oo aan hantideena wadankeena ku beelno xoolaheena aan ku soo bedelanaynay cagaarkana inaan dadkeena noo nastaan oo dhalinyaradena ay wax bartaan oo ay ka nastaan waqtiga ay luminayeen oo qaadka intay u fariistaan cagaarka ay cunayeen wixii maanta ka dambeeyay waxaan garaadsanay hantideena inaan wadankeena gashano baalkaas qaadka cagaarka inaan iska joojino